السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوير يسوق علي وبلان فرطان سمسته صاحب يال ولالهين أو اسكو دوبان أو إذن جعل وحالكا إذن كاقسو قدبينيا فرين أيو أركين مهم قف كستا أو مقالة مقدشة كنولنا أنفعيسا هدي هدبا فرين تن أديقو نصيب أو يالتو إني كسو قارتي أما الله سبحانه وتعالى أو كهالي لسيي إن المقال كان دميستو oo aad fahanto wax lagaaga digayo walaalkaaga warmooga gaarsii sababtoo ah meeshaas waxa ku jirta faa'iido ah in walaalkaa aad u sheegtay wax u wanaagsan ugana digtay wax khatar ku keeni kara haddii aad la baaqato. cali ku soco. rag wata jaakadaha qarxa ayaa lagu soo warinayaa xogaha aan helnay ay tilmaamayaan in ay soo galeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyaga oo doonaya in ay qaraxyo halkaas ka geystaan. cabsida ugu badani waxa ay soo wajahday dadka reer Muqdisho oo u nuglaa waayadii la soo dhaafay qaraxyada oo ay ka halakeeyeen dad badan oo hordoor ahaa. xogaha la helay ayaa warinaya in magaalada Muqdisho ay galeen rag isku soo xiray waxyaabaha qarxa kuwaas oo ka yimid dhinaca gobolka Shabeellaha Hoose waxaana wararka xogaha ayaan helnay oo ka yimid dhanka dawladda iyo xubnaha beesha caalamka ee degan xarunta xalane ay muujinayaan in dadkaasi oo tiradooda iminka inta la xaqiijiyay ay gaarayaan ilaa iyo 10 horas loo wariyay in ay 100 gaarayeen ay doonayaan in isqarxiyaan. ragga jaakadaha qarxa wata ee magaalada Muqdisho soo galay xaqiijintoodu waxa ay ka kala timid laba ilo wareed oo kala duwan oo dawladda ah oo mid tahay dhanka laamaha amniga ee dawladda gaar ahaan waxa dhanka dawladda afkiisa ka qiray in dad wata jaakado jaakado qarxa ay soo galeen magaalada Muqdisho. ninka taliyaha ciidanka asluubta oo goor sii horeysay baydhabo booliskooda mas'uulka ah laakiin mar dambe taliyaha asluubta laga dhigay mahad ninka lagu magacaabo oo generaalka ah waxa uu sheegay in xilligii ay socotay qalalaasihii la xiriiray muddo kordhintii farmaajo samaystay ee san laga biyo diiday xilligaas oo la isku mashquulsanaa ay magaalada soo galeen waa sida uu yiri laakiin heshiis kadib la ogaaday in dadkaasi ay magaalada ku jiraan oo ay doonayaan inay isqarxiyaan. dhanka kale xubnaha beesha caalamku maalin sii horeysay oo ka hor ah goortii la iiday oo ahayd khamiista toddobaadkii la soo dhaafay waa arbacadii waxa ay sheegeen in dad wata jaakado oo doonaya inay isqarxiyaan ay soo gaareen magaalada Muqdisho isla markaasna dadka Soomaaliyeed ee caasimadda jooga looga baahan yahay feejignaan dheeraad ah. halkaas marka ay joogto mas'uuliyiinta ammaanka ayaa sheegay in kooxdani ay doonayaan inay isku qarxiyaan goobo muhiim ah inkastoo aan bartilmaameed kala sheegin laakiin haddana waxaa markasta muhiimad u tahay in dadka Soomaaliyeed ay aad u digtoonaadaan iyada oo markasta laga feejignaanayo wax kasta oo la xiriira sida khatartaas amni looga feejignaan karo si waxyeello aysan uga gaarin dadka. beesha caalamka dhankeeda wararkeedu way soo tarayeen oo gaar ahaan xubnaha ku sugan halka lagu magacaabo xalada ay sheegayeen in ay muhiim tahay in mar kastaba laga digtoonaado qaraxyadaas iyo inay dhacaan iyo dadka inay saameeyaanba. halkaas marka ay joogto xogaha oo dhani waxa ay muujinayaan in dadka Muqdisho looga baahan yahay feejignaan dheeraad ah oo isku imaashihii iyo isku imaatinkii dadweynaha loo baahan yahay in la gaabiyo si looga feejignaado khatartaasi inay waxyeelo ku yeelato iyaga. sidoo kale warka ka soo baxay taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee ciidanka heeganka la geliyay waxaa lagu sheegay in ciidamada laga rabo inay ilaaliyaan oo feejignaan dheeraad ay ka muujiyaan xarumaha maxkamadaha iyo sidaas oo kale xabsiyada oo ay suuragal tahay in bartilmaameedku iyaga noqdo. general mahad taliyaha asluubtu wuxuu sheegay in ciidamada ay feejignaan dheeraad ah ku amrayaan geliyeen sidaa daraaddeedna la rabo in aysan waxyeelladu intaa in ka badan sii kordhin. si guud marka la isku soo laabo habacsanaan amni ayaa ka jirtay magaalada Muqdisho tan iyo markii isbedel xoog leh lagu sameeyay laamaha ammaanka ee gobolka Banaadir waxaana sidaas oo kale jira dadaallo aan la dafiri karin oo laamaha amnigu ay wadaan oo ay ku sheegeen inay uga gol leeyihiin in dadka Soomaaliyeed naftooda lagu badbaadiyo laakiin qof kasta oo muuqaalkan uu gaaro ayay tahay in mas'uuliyadda koobaad ee naftiisa isaga uu ilaaliyo waa haddii aad Muqdisho joogto oo qaraxyo iminka laga soo sheegay in magaalada ku jiraan. waxaa kaloo muhiim ah in dadka dhalinyarada ah ee haldoorka bulshada ay ka digtoonaadaan in isugu yimaadaan goobaha lagu caweeyo oo ay khatartu markasta u dhowdahay iyagana. sidaa daraaddeed xogahaas oo aan helnay ayaa sabab ka dhigay inaan dadka Soomaaliyeed sidan oo kale ula wadaagno soo dhawaada. hay
nabadqab iyo barwaaqo ayaan idinkaga tagnay walaalayaal. Taxadarkuna waa muhiim hal is ilaaliyo. Hana loo qaato digniintan ay saraakiisha ciidamada dowladdu sheegeen mid sax ah oo khatarteedana keeni karta. Maasnidiin.